Ku soo dhawaada daawadayaal warka warbaahinta walwal qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ku guuleysatay Kenya ka hor dhageysiga kiiska dacwadda badda ee 15 bishan loo ballansan yahay. Shirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka oo la sheegay in hab cusub uga dhici doono gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle oo aan wax mushaar ah qaadan muddo sanad ah. Kenya oo mar kale ku soo xadgudubtay qaranimada Soomaaliya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka warbixiyay waxa isku khilaafeen madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka xulan. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, muuqaalkana like noo saar, share garay oo asxaabtaada la wadaag. Waa hagaag haddii markaan aan ku bilaabo qodobada. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guul ka gaartay Kenya ka hor dhageysiga kiiska badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kaas oo loo ballansan yahay 15 bishan. Iyadoo la filayo in 15 bishan Maarso ay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay dhageysato kiiska badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo si sharci darro ah ku doonaysa badda Soomaaliya ayaa durba waxaa soo ifbaxaya guuldarrooyinka Kenya waxaana maxkamaddu ay diiday dalabyo badan oo ka yimid dhinaca Kenya. Dowladda Kenya ayaa waxa ay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ka codsatay in dhageysiga kiiska badda aan loo adeegsan qaab muuqaal ah maadaama hadda la doonayo in labada dal ay dacwadda badda u galaan qaab aaladda muuqaal aragga ah ee Zoom-ka loo yaqaano, balse Kenya ayaa waxay doorbidaysaa in qaab kale oo qarsoodi ah oo kiiska dhageysiga badda u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya lagu qaado. Ha yeeshee waxaa maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ku gacan saartay dalabkaasi ka yimid dowladda Kenya oo sheegtay in kiiska badda lagu dhageysan doono qaab aan muuqaal ahayn, waxaana maxkamaddu ay sheegtay in dacwadda badda ee u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya lagu dhageysan doono qaabka muuqaal aragga ah ama Zoom-ka. Wajigabaxa Kenya ay kala kulantay codsiga ay u gudbisay maxkamadda ayaana guul u ah dowladda federaalka Soomaaliya oo rajo weyn ka qabta in Kenya laga difaaco qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya ee ay ugu soo duushay sida sharci darrada ahna ay ku doonayso inay ku hantiso. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaana xiriirka u dhexeeyay muddooyinkii dambe waxa uu ahaa mid aad u xun, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay xiriirka diblomaasiyadeed ay u jirtay dowladda waxaana kiiskan badda ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya la sheegay inuu soo bilowday xilligii ra'iisul wasaaruhu dalka uu ka ahaa Cumar Cabdirashiid Cali Sharma Arke, iyadoo sidoo kale markaa uu wasiirka qorsheynta u ahaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah hadda midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya waxaana siyaasigaasi lagu eedeeyaa inuu badda Soomaaliya qayb ka mid ah uu ka iibiyay Kenya. Shirka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa uu hab cusub kaga dhici doonaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Shirka looga arinsanayo doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ka furmo magaalada caasimadda ee Muqdisho kaas oo ay dabada ka riixayso xubnaha beesha caalamka. Shirkan oo dhowr jeer oo horey baaqday ayaa haatan waxaa dabada ka riixaysa beesha caalamka oo dadaal xoogan ugu jirta in la isku keeno dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya kuwaas oo iyagu doonaya in miiska wadahadalka la isugu yimaado si loo dhammaystiro heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay 2020 laga gaaray hanaanka doorashooyinka. Xogo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in toddobaadkan gudihiisa Muqdisho ay soo gaari doonaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaas oo iyagu hadda ka maqan magaalada Muqdisho. Madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland oo markii hore si cad u diiday casuumaadda madaxweyne Farmaajo ayaa hadda la sheegayaa in iyagu ay soo gaari doonaan magaalada Muqdisho. Shirkuna uu ka dhici doono gudaha xarunta Xalan oo iyagu ay dalbadeen in lagu qabto shirka. Si dhab ah looma oga cidda sida rasmiga ah garwadeyn ugu noqonaysa shirkan maadaama maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ku gacan saareen shirar horey ugu baaqay madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Beesha caalamka ayaa iyadu waxay dadaal xoogan ay ku bixinaysaa sidii la isugu keeni lahaa dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka dalka. Waxaa xusid mudan in horey ugu guuldareysteen shirar badan oo la isugu keeni lahaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka, mana cadda natiijada ka soo bixi doonta shirkan la filayo in Muqdisho ay u yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada. Weerarka ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in shirka aan lagu qaban doonin villa Soomaaliya oo dhowr mar lagu qabtay shir u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaana waxay shaki ka muujiyeen ammaankooda iyagoo sheegay inay ka baqayaan villa Soomaaliya. Waxaa weli xaalad cakirin ka jirta xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya oo ay ku hirdamayaan dhinacyada isku haya iyadoo muddooyinkii dambe laga deerinayay xaaladda ammaan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii iska horimaad uu bishii hore dhex maray midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalka. Wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa ku dhawaad muddo sanad ah waxa aysan qaadan wax mushaar ah. Xogo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in muddo 10 bilood ah aysan wax mushaar ah qaadan ama gunno ah aysan qaadan wasiirrada xilgaarsiinta ah
ee maamulka Hirshabelle halka baarlamaanka cusub aysan qaadan muddo 2 bilood ah. xubnahan wasiirada ah ayaa lacag u soo dhacda waxa ugu dambeysay 23 bishii 6 ee sanadkii hore, waxaana kadib aysan weli helin xuquuqdooda. muddada inta la eg weli wax mushaar ah ma qaadanin golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana suuragal ah inaysan ka soo dhex muuqan wasiirada cusub oo ay isugu soo darsato mushaarkooda oo ay ka maqan yihiin. waxaana la sheegay in wasiiradu lagu leeyahay lacago deyn ah iyadoo shaqo la'aan ay ku dhacday. musuqmaasuq xooggan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto maamulkaasi. muddada uu dhisan yahayna ayaa waxay ku dhowdahay 5 sano. hoggaanka cusub ee maamulka Hirshabelle ayaa ka kaban dhibaatooyinka badan ee deegaanadaasi hareeyay oo maamulka hore u haystay. sidoo kale maamulka Hirshabelle ayaa waxa wajahaya go'doon cusub oo dhanka Al-Shabaab ah. magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle iyo deegaanka afarta tuulo hoos tagta degmada Mahaday ayaa muddo dhowr bilood ah wax raashin ah aan la gaarsiin kadib markii Al-Shabaab halkaas ay go'doon geliyeen. deegaanada maamulka Hirshabelle ayaana waxaa weli ka taagan isqabqabsi u dhaxeeya maamulka Hirshabelle iyo jabhadda uu hogaamiyay Jarnaal Xuud oo isagu aad kaga soo horjeeda qaabkii loo maray dowlad goboleedka Hirshabelle ee uu hadda hogaamiyo Cali Guulaawe Xuseen oo ah madaxweynaha maamulkaasi, iyadoo sidoo kale madaxweyne ku-xigeen looga dhigay maamulkaasi gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo asal ahaan ka soo jeeda gobolka Hiiraan. dowladda Kenya ayaa mar kale ku xadgudubtay qarannimada Soomaaliya. waxaa gaajo iyo oon ugu geeriyooday deegaanka lagu magacaabo Caws Qurun oo ku yaala duleedka degmada Caalwaaq ee gobolka Gedo 2 wiil oo walaal ah oo aad u dayara. Maxamed Xuseen Xasan oo 10 sano jir ah iyo Aadan Xuseen Xasan oo 7 sano jir ah ayaa waxaa lagu aasay qabuuro ku yaala isla deegaankaasi. sidoo kale dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada Caalwaaq ee gobolka Gedo oo garoonka diyaaradaha laga xirtay ayaa gurmad ugu baxay miyiga si dadka loo badbaadiyo. ilaa iyo hadda waxaa degmada Caalwaaq sida wararku ay sheegayaan la geeyay 10 ruux oo garaab ah, kuwaas oo iyagu markaa laga dareemayo gaajo iyo macluul. garoonka diyaaradaha ee degmada Caalwaaq ayaana waxaa xirtay ciidamada AMISOM ee ka socda dowladda Kenya oo xiriir wanaagsan uusan kala dhaxaynin dowladda Soomaaliya, waxaana Kenya ay go'doon gelisay garoonka iyadoo aysan cidna garoonka ka duulin karin, sidoo kalena aysan ka soo degi karin. waxaana ciidamada Kenya ay diideen in diyaaradahu halkaas ay ka duulaan. maamulka dowladda ee gobolka Gedo ayaana weli arrintaasi ka hadlin oo ka aamusan. deegaanada maamulkaasi uu ka kooban yahay ayaana hadda waxaa ka jirta xaalad bini'aadanimo tii ugu xumeyd, waxaana ka jira abaaro xooggan, iyadoo sidoo kale kulan ay yeesheen guddiga abaaraha maamulkaasi ay sheegeen in abaartu ay saameysay shacab ah oo gaaraya 1 milyan iyo bar, kuwaas oo iyagu abaartu aad u saameysay. xaalad aad u adag ayaa hadda waxaa laga soo warinayaa inay ka jirto deegaano ka tirsan Jubbooyinka iyo Gedo, iyadoo biyo iyo baad la'aan dadku ay u geeriyoonayaan. waxaana marar badan lagu baaqay in loo gurmado dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen ee iyagu ku nool Jubbooyinka iyo gobolka Gedo oo maamul ahaan uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay markii ugu horeysay waxa isku khilaafeen isaga iyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya haddana ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay sababta keentay in iskhilaafaan isaga iyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taas oo keentay in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre xilka laga qaado. waxa uu sheegay in la isku qabtay in la qabto doorasho xalaal ah oo aan ciidan iyo xildhibaano musuq lagu soo xulin, isla markaana aan doorashada la boobin. sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in kaliya uu ka soo horjeedo doorasho aan xalaal ahayn isla markaana la boobo. waxa uu sidoo kale Xasan Cali Khayre uu sheegay inuu ka soo horjeedo in xildhibaano lagu soo xulo qaab xoog ah. 25 bishii Juulaay ee sanadkii tagay 2020 ayaana Xasan Cali Khayre xilka looga qaaday kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha shacabka kadib markii ay arrimaha doorashooyinka isku khilaafeen isaga iyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaana hadda waxa uu ka mid yahay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya, kuwaas oo iyagu dhaliilsan qaabka dowladda federaalka Soomaaliya u doonayso inay maamusho doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Soomaaliya. midowga musharaxiinta ayaana sidoo kale waxaa dhowaan lagu kala tagay shir ay la yeesheen xukuumadda xilgaarsiinta, iyagoo la isku fahmi waayey in midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya laga qayb dhigo shirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada la filayo inuu ka dhex maro gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waad ku mahadsantihiin daawashada warka. haddii ay tahay markii kugu horreysay aad na soo booqato, subscribe noo saar oo like noo saar, asxaabtaadana u sheer gareey. mahadsanidin.